Cutubka sagaalaad taageerada qoysaska iyo qaraabada. In maaraynta meydka loo wajaho hab anshax iyo naxariis leh oo dhaqankana ilaalinaya waxay yarayn kartaa xanuunka qoysaska murugaysan, waxayna ka caawin kartaa inay noqdaan kuwo ku lug leh oo ku kalsoon nidaamka. Ugu horreyn waa in la sameeyaa xarun udub-dhexaad u ah xiriirka qoyska ama xarunta caawinta qoyska si loo taageero qoysaska loogana caawiyo inay soo sheegaan ehelada la la'yahay sidoo kalena filashooyinka loo maareeyo. Aqoonsiga kadib, qoysaska waa in lagu wargeliyaa oo loo oggolaadaa inay arkaan meydadka kuwii ay jeclaayeen oo qayb ka ah habka yaraynta murugada, iyadoo si ku habboon la isugu diyaarinayo waxa la filan karo. Waxaa kale oo laga yaabaa inay jirto baahi loo qabo bixinta taageero dhaqan ahaan muhiim ah oo maskaxeed, gargaar degdeg ah, iyo daryeelka carruurta aan lala socon iyo kooxaha nugul. Iyadoo la siinayo taageero dhanka naxariista ah iyo mid farsamo, labadaba qoysaska iyo bulshooyinka ayaa waxaa lagu hagi karaa wakhtiga adag ee walaaca leh.